doorashada Soomaaliya ayaa si toos ah uga baxday gacanta dhinacyadii ku loolamayay muddooyinkii dambe sida Farmaajo, midowga musharaxiinta, guddiga doorashada ee heer federaal iyo xitaa maamulka qabiilada. Marka aad akhriso warmurtiyeedkii maanta ka soo baxay shirkii madaxda maamulada iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, dalku wuxuu aaday jiha isu awood sheegasho ah taas oo walaac ku ah natiijada doorashada iyo xasiloonida dalka. Waxaan warbixintan ku dul istaagaynaa qodobada sida tooska u burburinaya inay dhacdo doorasho hufan oo ay dhinacyadu si dhaxtaal ugu tartami karaan. Qodobadan waxay sidoo kale sheegayaan in kuraasta aqalka hoose ay isu bedeli doonaan sida xulashadii malxiiska loo sameeyay ee doorashadii aqalka sare ee dhawaan dhacday. Siciid Cabdullaahi Dani oo la aaminsan yahay inuu habraacan isagu alifay ayaa u muuqda inuu ka faa'iidaystay siyaasadda afbilowga ah ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. qodobada u baahan in la fahmo. qodobka labaad, xarafka A wuxuu leeyahay ergada waxaa soo xulaya duubka iyo nabadoonnada ka diiwaan gashan maamul goboleedka iyo sidoo kale xubno bulshada rayidka ka socda, kuwaas oo dhammaan ah qabiilka kursiga iska leh. qodobkan wuxuu diiday odayaashii la yaqaanay ee u diiwaan gashanaa dowladda federaalka ah. nabadoonnada aan madaxda maamuladu ogolayn ma xuli doonaan ergada beeshooda. isla qodobka labaad, xarafka D wuxuu leeyahay xubnaha bulshada rayidka ah ee wax ka soo xulaya ergada waxaa soo magacaabaya guddiga doorashada ee heer maamul goboleed. tani waxay ka dhigan tahay hogaamiyaha maamul goboleed kasta wuxuu ishoos keenay xubnihii duubabka iyo kuwii bulshada rayidka ahaa, sidaa darteed ergada uu rabo unbaa la qori doonaa oo kadibna dooranaya xildhibaanka uu isagu rabo. xarafka H ee isla qodobkani wuxuu leeyahay xubnaha soo xulaya ergadu waxay awood u leeyihiin inay qaybinta ergada ee beelaha inay u raacaan sidii doorashadii 2016 ama inay hab cusub la yimaadaan. meeshan waxaa ku jira ku tagrifal. hadda jufooyinka kursigu ka dhexeeyo waxay xisaabsanayaan in jufadii 10 erga ah heshay doorashadii 2016 inay doorashadan heli doonto 20 maadaama tirada ergada la laba jibaaray, balse hadda taas waa la bedeli karaa. waxaa arrintaas awood loo siiyey guddiga xulista ergada. tusaale, reerkii sanadkii hore qaatay 20 erga ah hadda kuma tashan karaan 40. go'aankaas cid kale ayaa gacanta loo geliyey. musharaxii xildhibaan ee la rabo in laga adkaado jufadiisa ayaa lagu yarayn karaa ergada. 3 meelood 2 ka mid ah tirada ergada ayaa muhiim ah si doorashada kursigu u dhacdo. reerkii gadooda waa laga socon karaa ayuu ka dhigan yahay xarafka I ee isla qodobkan. awoodda ay maamuladu maanta xoogeen waxaa sidoo kale ka mid ah markii la qoro ergada waxaa hubinaya guddiga amniga ee maamul goboleedka. waxay ka dhigan tahay ergada la rabo in la reebo oo aan codkooda ku shaqaynaynin sida uu rabo ninka maamul goboleedka haysta waxaa loo diri karaa dambi baaris si looga reebo liiska. sidoo kale musharaxa u tartamaya kursi xildhibaan waxa uu warqadda dambi la'aanta ka rabaa maamul goboleedka, waana loo diidi karaa si uusan u tartamin, waana awood maroorsi kale. qodobka afaraad, xarafka B waxa uu leeyahay madaxda maamul goboleedyada iyo guddi hoosaadkooda doorashada ayaa go'aaminaya kuraasta noqonaya dumar. micnaha qodobkani waa in siyaasigii la diidan yahay inuu tartamo in kursigiisa laga dhigi karo gabar. ku dhawaaqista musharaxiinta ku tartamaysa kuraasta aqalka hoose iyo shaacinta natiijada waxaa la hoosgeeyey guddiga doorashada ee heer maamul goboleed. waxaa jira wakhti hubin ah oo aan la isla go'aamin, sidaa darteed haddii ay musharaxnimadaada dafiraan guddigan ma tartami kartid. sidoo kale haddii ay rabaan natiijadaada waa shaki gelin karaan oo guul ma sheegan kartid ilaa ay ka soo saaraan natiijada dhabta ah. wakhtiga lagu shaacinayo inaad guulaysatay lama caddaynin. guddiga doorashada ee heer federaal waxaa si maldahan loo yidhi iska kala taga. awooddoodii oo dhan waxaa qaybsaday Rooble, madaxda maamulada iyo guddiga doorashada ee heer maamul goboleed. waxaa iyaga lagu soo koobay kormeer, hubin iyo isla maamulid dhaqaale. Rooble oo isaga maalmahan laga dheehanaya damac cusub waxa uu si weyn gacanta ula galay kuraasta Somaliland. Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuled ayaa soo qoraya xubnaha aqalka sare ee reer waqooyiga. Rooble dhammaan kuraasta labada aqal ee reer waqooyiga xafiiskiisa ayuu hoosgeeyey haddii ay ahaan lahayd xaqiijin, korjoogtayn iyo saamayn intaba. maamuladu
nin walba hadda inta kursi ee deegaankiisa taalla ayuu xoogi karaa mar haddii ay qaateen xubnihii ergada qoraysay xaqiijinta ergada oggolaanshaha musharaxa iyo oggolaanshaha natiijada. Rooblana waxa uu qaatay liiskii reer waqooyiga. shirkii maanta ku soo ilaaday magaalada Muqdisho wuxuu u muuqdaa inuu nuqullo boob lagu banaysanayo u samaystay doorashadii qaranka ee dalka halista gelisay bishii Abriil ee sanadkan. sida muuqata xaalku hadda ayuu intii hore ka culus yahay. mucaaradka ayaa la filayaa inay bari isugu yimaadaan shir degdeg ah. xoguhu waxay sheegayaan inay si toos ah uga hor imaan doonaan falfalxumadii maanta dhacday. sidoo kale kooxda farmaajo oo lagu jiifinayay in muddo ah inay Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyaga u shaqaynayaan ayaa baraarug cusub laga soo tabinayaa hadda. guddiga doorashada ee heer federaal ee bannaanka lagu tuuray maanta ayaa iyagana la filayaa inay ka hadlaan afduubka lagu sameeyey doorashadii qaranka. hoggaanka dhaqanka oo iyagana ay xuquuqdoodii qaateen madaxda maamulada ayaa sidoo kale la filayaa inay arrintani ka hor yimaadaan. maxay kula tahay adiga?